asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland qodobada warka subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka nabadiidka al-shabaab maamulka deegaanka wallaweyn oo amro ka soo saaray isbaarooyinka safaaradda soomaaliya ee dalka kenya oo si rasmi ah loo furay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo howlgal isbaara qaadisa ka sameeyay wadada xiriirisa muqdisho iyo baydhabo wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada mareykanka oo 20 sano kadib baneeyay saldhig muhiim ah iyo imaaraadka oo dadkiisa ka mamnuucay inay u safraan dalal uu ku faafay covid-19 waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan waa hagaag dhegeystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay waa subaxnimo sabti ah taariikhduna waa 3 bisha 7 ee July sanada 2021 intaasi aad maqasheen dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warkayga subaxnimo haatan u diyaar garooba dhegeystayaal dhageysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa si kulul oo cambaareeyay qarax ismiidaamin ah oo markaasi ka dhacay goob maqaaxi ah oo ay ku shaaheynayeen dad rayid ah kaasi oo nabadiidka al-shabaab ee dhalinyaro iska shaaheynaysay ay ku xasuuqeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu yiri waxaan cambaareynayaa qaraxii argagixisada al-shabaab ay ka geysteen muqdisho ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan inta dhimatay allaha u naxariisto dhaawacyadana allaha u boogadhayo falkan waxa uu muujinayaa sidii argagixisada uga go'an tahay waxyeeleynta shacabka taasi oo waajib inaga dhigaysa inaan iskaga kaashano la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada noo diidan nabadda iyo dowladnimada hay-adda garsoorka gobolka mudug ayaa markaasi ka warbixisay adeegyada ay ka bixiso oo ay siiso bulshada ku nool gobolka mudug la magacaabay guddoonka iyo guddoomiyaasha guddoomiyaasha ee maxkamadaha la magacaabay haga galmudug iyo maxanaha galgaduudba ومع ذلك باهidii iyo intiina way sii jirtaa waxay kaloo inta uga sii duwan tahay galmudug waxay taa meelaha ugu baahi badan ee garsoorka lagu baahi badan yahay galmudug ayadoo Soomaaliya dhan la qabta burburka iyo waxa gaaray Soomaaliya say u burburtay garsoorkeedina waa burbur haddana hadda waxay ku jirtaa koriinay ku jirtaa marka meel fiican u maraya waxaan wax badan oo dhimanna way jiraan waayo qofku markuu dhasho hal mar hore kama ordo garsoorka waa dhashay wuxuu u baahan yahay koriin u baahan yahay meeshuu jooga waxa kamid ah shalay sanadkii hore saan sheegay waxa la magacaabay guddoomada usbuuca hadda la soo dhaafana waxa la magacaabay garsoorayaasha marka la magacaabay waa ku mahadsan yahay madaxweynuhu laakiin wax badan la rabaa garsoorkuna u baahan yahay oo aan u dirayna haddaan nahay sharci yaqaanada heer federaal ama galmudug hadda jooga waxaan aan ka codsan lahayn inuu ku daro in garsoorka loo madax baneeyo shaqadiisa xagga maaliyadeed iyo xagga shaqada uu qabanayo in loo madax baneeyo waa kow labo inuu u sameeyo ciidan garsoorku leeyahay garsoorka ciidan laan ma shaqay karo sababtoo ah haddii garsoorihii uu xukun rido wuxuu u baahan yahay furin haddii maxkamadda dhexdeeda ay ka dhacdo faldambiyada waxa loo baahan yahay amarka garsooraha in la furiyo cidii fulin lahayd waa ciidankii waa loo baahan yahay garsoorka uu leeyahay si gaar ah uu leeyahay dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee maamulka degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose Ismaaciil Abuukar Maxamed ayaa waxa uu soo saaray wareegtooyin kuwaasi oo looga hadlayo ammaanka degmada iyo qaadista canshuuraha war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha ayaa waxaa lagu mamnuucay in isbaarooyin la dhigto deegaanka warmaxan ilaa tuulada Leego sidoo kalena aan lagu qaadan karin hubka sharci darrada ah balse kaliya hubka loo ogol yahay ciidamada ammaanka Soomaaliya
sidoo kale guddoomiyaha walaweyn ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in lacag sharci darra aan laga qaadi karin bulshada degmada walaweyn oo uu sheegay inay usoo gudbiyeen cabashooyin kala duwan. ugu dambeyn guddoomiyaha cusub ee walaweyn ee gobolka shabeellada hoose Ismaaciil Abuukar Maxamed ayaa ku amray hay-adaha maaliyadda ee dowladda hoose inay soo diyaariyaan waraaqaha dakhli aruurinta ee ilaha dhaqaalaha degmada iyo wixii aan looga maarmi karin. howlgal sii wada jira ay u sameeyeen ciidanka commandoska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa dhammaan lagu qaaday isbaarooyinkii ilay wadada xiriirisa Baydhabo iyo Muqdisho. howlgalkan uu horkacayay wasiirka amniga koonfur galbeed ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha ciidanka daraawiishta, saraakiil kala duwan oo ka socotay ciidamada xoogga dalka. inta uu socday howlgalkan isbaara qaadista ah ayaa waxay ciidamadu ku gudbeen isbaarooyin kala ah balow daa'uud buule iyo weliba isbaaro taraafiko iyo dhufaysyo maleeshiyaad beeleed ay ka samaysteen gudaha deegaanka walaweyn. muddada uu socday howlgalkan waxaa ciidamada huwanta ah ee gacanta ay kusoo dhigeen askar si sharci darra ah lacago uga qaadayay gaadiidka isticmaala wadooyinka muhiimka ah ee gobolka iyo guud ahaan dalka. dhinaca kalena waxaa dib loo furay muddo 6 bilood ah kadib safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kadib waxaa laga gaaray khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. munaasabada lagu furayay safaaradda oo lagu qabtay xarunta safaaradda ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka, mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaalida. safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu weligiis ahaa mid isbedelaya oo marna xoogaysanaya marna hoos u dhacaya, isla markaana labada dowladood aysan kala go'i karin. sidoo kale Ambassador Tarsan waxa uu sheegay in safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya si rasmi ah loo furay hase yeeshee maalinta Isniinta ee toddobaadkan ay shaqo bilaabi doonto, waxaana Soomaalida ugu baaqay in ay adeegyada ay uga baahan yihiin safaaradda kasoo doonan karaan xarunta safaaradda. halkaad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. markan intaanan u gudagelin wararka dibadda, kusoo dhawaada dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee warka subax waxaana la diyaaraa Cabdirasaaq Ali Cabdulle Socod. aad baad u mahadsantahay Kamaal. dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka. aan ku bilaabay dhegaystayaal xulka Spain ayaa u gudbay wareega fardhamaadka ee koobka qaramada qaaradda Euro 2020 kadib markii uu guul ka gaaray dhigiisa Switzerland. qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay eber iyo hal ay ku hogaaminayso xulka qaranka Spain. daqiiqadii 8aad xulka qaranka Spain ayaa hogaanka ciyaarta u qabtay kadib markii uu gool iska dhaliyay xidiga qadka dhexe ugu ciyaaro kooxda qaranka Switzerland. qaybtii labaad ee dheesha markay dib iskugu soo laabtay ayaa labada dhinac waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo sameeyay fursado badan oo goolo loo filan karay. daqiiqadii 68aad markay dheesha ay marayso xulka Switzerland ayaa dhaliyay goolka barbaraha kadib markii uu 1-1 ka dhigay xidiga Iran. 90 daqiiqo ee ciyaarta lagu talagalay ayaa waxay kusoo idlaatay barbara 1-1 ay isku mari waayeen labada xul ee qaranka Switzerland iyo Spain, waxaana loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo dheeri ah si labada xul ay kala baxaan. ugu dambeyntii xulka qaranka Spain ayaa iska xaadiriyay wareega fardhamaadka ee koobka qaramada qaaradda Yurub ee Euro 2020 kadib markii rigoora 3-1 kaga soo gudbeen Switzerland iyaga sugaya kii usoo gudba xulalka Belgiumka iyo Itaaliya. xubinta ciyaaraha warka waa naga intaan dib idinku celiyo qeybaha warka ka dhiman. markana wararka dibadda, ciidamada Mareykanka ayaa 20 sano kadib waxa ay markaasi isaga baxeen saldhigga Bagram ee Afghanistan
askarta maraykanka ee ka baxay saldhigaasi ayaa waxaa lagu qiyaasayaa 2,500 ilaa 3,500 inta u dhexaysa. saldhigan oo ahaa mid dhinaca cirka ah ayaa waxaa lagu wareejiyey ciidamada difaaca iyo amniga qaranka Afghanistan. sargaal Amerikaan ah oo aan la shaacin magaciisa ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka AAP. ciidamada maraykanka ee ku sugan gudaha Afghanistan ayaa la filayaa in bisha September ay soo socoto ay bilaabmaan ka bixitaankooda dalkaasi. ugu dambeyntiina dhageystayaal, dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta waxa ay muwaadiniinteeda ay ka joojiyeen inay markaasi u safraan 14 wadan oo horey dadkooda looga diiday inay Imaaraadka ay galaan. qoraal ka soo baxay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa lagu xusay in dadka Imaaraadka u dhashay laga mamnuucay inay u safraan dalalka kale ah India, Pakistan, South Africa, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Namibia, Zambia, Congo, Uganda, Liberia iyo weliba Nigeria. dhinaca kale, shirkadaha diyaaradaha ee Imaaraadka ee Etihad waxay markaasi mamnuucday dhoofiyaasha ka soo baxaya dalalkaasi oo uu ka dilaacay nooc cusub ee Delta ee xanuunka laayaanka ee COVID-19. warkii subax ood kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. dhageystayaal, xilligani waa naga intaa warka subax waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Kamaal Maxamed Axmed Kaynaan. tan iyo kulankeena kan xiga dhageystayaal, hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.